ay markaa xafladdu ka dhacayso oo uu markaa khudbaduhu ay si rasmiya noogu bilaaban doonaan. daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo meel walbood nagala socotaan waxaad naga daawanaysaan TV-ga qaranka Soomaaliyeed raadiyo Muqdisho codka Jamhuuriyaddana waad naga dhageysanaysaan. wakaalada wararka qarankuna hadba waxay idiin soo gudbin doontaa fariimihii ugu dambeeyey iyo qoraallada dhacdooyinka halkan ka dhacaya xafladdan ballaaran. madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa haatan waxa uu u soo dhaadhacay dhanka iyo halka ay mas'uuliyiintu fadhiyaan, waxaana markaa uu warbixin ka dhegaysanaya uu kormeer weli ku jira halka ay markaa qalabka lagu diyaariyey. dhismahan quruxda badan daawadayaal ee aad arkaysaanna waxa uu ka mid yahay dhismayaasha quruxda badan ee loogu talagalay in ay ku shaqayso waaxda saadaasha iyo duulista hawada jamhuuriyadda Soomaaliyeed. fanaaniinta howlada qaranka waaberi ayaa kaalimaha sugaanta ee dhanka waddaniga ah waxa ay markaasi halkan doonayaan in ay la wadaagaan bulshada meel walba oo ay nagala socdaan. waxaan idinla socodsiin doonaa hadba dhacdadii ugu dambaysay khudbadaha mas'uuliyiintu ay jeedinayaan. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa na soo gaaray haatan oo u soo tallaabay dhanka ay xafladdu ka dhacayso oo uu ka ku biirayaa mas'uuliyiinta ka qaybgalaysa xafladda. waa hagaag daawadayaasha qiimaha lahow, weli madaxweynaha jamhuuriyaddu waxa uu ku guda jiraa kormeerka uu markaa ku samaynayo xarunta saadaasha iyo duulista hawada oo qalabka casriga ayuu madaxweynuhu waxa uu eegayaa qaabka ay u shaqayn doonto waaxdani, waxaana uu warbixinno ka dhegaysanayaa waaxda saadaasha iyo duulista hawada mas'uuliyiinteeda. madaxweynaha ayaa si rasmiya xarigga uga jaray waaxdan ama xaruntan ay ku shaqayn doonto hay-adda saadaashu. Stand by, secretary, stand by. Give you right away, stand by, stand by. Mana joojina waa hagaag daawadayaal kulanti waana wanaagsan mar kale waxaan ku sugannahay xafladda ballaaran ee markaa loogu talagalay in lagu daahfuro dib u howlgelinta xafladda ballaaran ee loogu howlgelinayo dib maamulka hawada Soomaaliyeed oo Soomaaliya ay la soo laabanayso muddo 27 sano ah kadib. waa yahay daawadayaal xafladda ayaa si rasmiya markaan u bilaaban doonta oo khudbadaha mas'uuliyiinta ayaanu idiin soo gudbin doonaa. waxaa ku sugan xafladda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo, madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed ducaale geelle xaaf, wasiirada arrimaha gudaha gaadiidka iyo duulista hawada xeeraalyaha guud ee qaranka xildhibaano
mas-uuliyiin fara badan oo ka mida xubnaha xubnayaasha golayaasha dawladda ayaa xafladda ka qayb gelaya waxaa kaloo ayna sidoo kale ku sugan saraakiisha ciidamada mas-uuliyiin hore oo horey xilal u soo qabtay oo uu ka mid yahay wasiirka hore ee gaadiidka iyo duulista hawada cali axmed jaamac deegeli ayaa iyana ka qaybgalayaasha ka mida daawadayaal xafladdan ballaaran oo aad u farxad dabcan u badan oo bulshada soomaaliyeed tiir muhiim u ah qarannimada soomaaliyeed ay dib u helayso maanta maamulkeeda hawada soomaaliya ayaannu idinla socodsiin doonnaa meel walboo joogtaanna waxaan idin leenahay dhegaysi wacan daawasho wacan raadiyaha qaranka iyo tv-ga ayaad nagala socotaan oo aan idiin soo gudbin doonno hadba sida ay khudbaduhu u dhacayaan madaxweynaha ayaa dabcan farriin waxa uu u diri doonaa bulshada soomaaliyeed haatan madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa uu ka soo bixi doonaa halka uu markaa kormeerayey qalabka casriga halka uu ku shaqayn doono oo dabcan sida aad daawo doontaan madaxweynuhu waxa uu ka soo bixi doonaa dhismaha quruxda badan ee loogu tala galay in laga maamulo hawada soomaaliya oo qalab casriya markaa uu ku diyaarsan yahay waxaana madaxweynuhu uu kormeer ku sameeyey qalabkaasi iyo sida goobaha uu yaallo isagoo warbixin ka dhegaystay maamulka waaxda saadaasha iyo waa duulista iyo saadaasha hawada soomaaliyeed oo uu markaa madaxweynuhu khudbadaha ama uu markaasi warbixinno ka dhegaystay qaabkay u shaqayn doonaan waa hagaag waxaa noo bilaaban doonaa khudbadaha sida rasmiga ah madaxdu ay markaa halkan uga jeedinayaan gobollada qaranka ee waaberi ayaa iyana goobta ku sugan waxaa kaloo jooga fannaanka soomaaliyeed ee caanka ah cali dhaanto oo ka mid a fannaaniinta sida weyn markaa ugu caan baxay dhaantada oo maalmahan ku sugnaa magaalada muqdisho halkan ayuu isna sidoo kale waxa uu ka qaaday qaar ka mid a heesihiisa dhaantooyinka waana filaynaa dabcan inuu mar kale halkan markaa bulshada oo la dabaaldegi doono bulshada soomaaliyeed ee xafladdan qiimaha badan leh maanta halkan aanu ugu dabaaldegayno warbaahinta qarankuna markaa ay idinla socodsiinayaan daawadayaal waxaad arkaysaan sida quruxda badan ee dadku markaa ay ugu diyaar garoobayaan in iyadoo xilligaa kulaylaha ay tahay ay diyaar u yihiin inay xafladdan quruxda badan leh ay u dabaaldegaan bulshada soomaaliyeedna meel walba ay joogaan warbaahinta ayay nagala socdaan oo qaybyada kala duwan halkaan ayana markaasi tebinta tooska ah samaynaya waa hagaag daawadayaal madaxweynuhu weli waxa uu ku sugan yahay gudaha dhismaha oo uu markaasi kormeerkii weli ku jiro waana uu markaa soo bixi doonaa si khudbadu ay u bilowdaan maadaama wakhti dambe saacaddu ay tahay waa yahay qaar ka mida mas-uuliyiinta ayaa hadlaya haatan in qalabka noo yaalla uu yahay qalab casriya oo suurtagelinaya in aan gaarno meelo fara badan oo runtii aan dhihi karo sida uu noo sheegay waddamada dariskeenuna ilaa hindiya seychelles iyo bariga afrikaba oo suurtagal tahay in saadaasha hawada weli madaxweynaha waxa uu booqanayaa asaga iyo wasiirka gaadiidka duulista iyo hawada qalabkii loogu talagalay waa yahay madaxweynaha wuu soo baxay fadlan ha loo istaago madaxweynaha ayaan soo dhawaynaynaa
oo maanta munaasabadan quruxda badan nagala soo qayb galay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo fadlan ila soo dhaweeya madaxweynaha iyo wasiirka gaadiidka duulista maxamed cabdullaahi salaad waayahay madaxweynaha ayaa fadlan soo gelaya waayahay madaxweynihii ayaan saantii qaranka qaadanayo markana qaybta dambe ee barnaamijka waxaa daadihin doona saaxiibkay wariye ibraahim cumar baafe oo isagu maanta qudhiisa nagala soo qayb galay barnaamijkan xaafladda daahfurka saadaasha hawada waxaan ku wareejin doonaa qaybta dambe ee barnaamijka inuu noo xiriiriyo wariye ibraahim cumar baafo ayaan ku wareejin doonaa cumar wariye baafe kusoo dhawow soo dhaqso